الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة في الله الله تبارك وتعالى إن بدن وحوين فهنسينيا كون كان sida uu ku maamulo iyo qaanuunka uu ku maamulo iyo sunnadiisa xukunta kownkan ayuu in badan rabbi tabaaraka wa tacaala qur'aanka kariimka ah inuu fahansiiyo sunnada waxa kamida sunnada rabbi tabaaraka wa tacaala ogeysiiska uu ku bixiyay wa idh ta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum rabbi wuxuu idin ogeysiis ku bixinayaa haddaad shukridaan oo nicmadiisa ka shukridaanna inuu idin kordhinayo haddaad kufridaan oo nicmadiisa garan weydaan oo ku jisaartaanna cadaab xanuun badan inuu idin marinayo sunnada rabbi tabaaraka wa tacaala oo nicamka haddii laga shukriyana ziyaado lagu helayo haddii lagu kufriyana cadaab iyo cuquuba ka dambaynayso allah tabaaraka wa tacaala in badan buu inoo sharxay in badan baa qur'aanka lagu cadeeyay qisooyinka qur'aanka inta badan qaatay ee ummadihii hore laynooga sheekaynayo wax kale ma aha waxaa la doonayaa inaynu fahanno adduunkani seebuu rabbi ku maamulaa sidee bay ummadi ku hormartaa sidee bay barwaaqo ku gaadhaa sidee bay adduunka kaga badbaadaa masaa'ibta dhacaysa sidee bay ummadi ku halaagsantaa sidee bay ku baaba'daa aafaadka maxaa keena ummadihii hore maxaa baabi'iyey sidee baa dhibaata ku timaadaa dheefisa see lagu helaa qiso kasta markuu rabbi ka sheekaynaya ma aha wax lagu faakihaysta ma aha alfu layla walayla ma aha qisooyinka qur'aanku wax la isaga faakihaysta ma aha laakiin duruus bay xambaarsan yihiin duruus noloshaada saamaynaysa xambaarsan yihiin nuux ka soo bilow iyo qownkiisii ilaa ummadaha ugu dambeeya marka laga sheekaynayo mid walba waxay daaran tahay macna adiga ku khuseeyay daaran tahay inaad fahanto rabbi tabaaraka wa tacaala kownkan seebuu u maamuli jiray isla siduu u maamuli jiray buu haddana u maamulaya rabbi tabaaraka sunan kawniya jira waa weyn قوانين واحد شرط ربي كون كم معموله إن أتفهمته وباحن نعمة إلهي كسي هدات كالشكر ذا ولقو كردين أدون كي آخرنا أبال ونكسن بالله نعمة ربي كسي هدات كالشكرين ويدود كرم ويدود كفر دوت كبرتود قوقضنا الله تبارك وتعالى أدون كان واقع عقابيا هقعد آخرنا عذاب كذا إلى هذا meelo badan buu quraanku ku cadeeyay allah tabaaraka wa tacaala meelaha uu ku cadeeyay waxa kamida rabbi tusaalu ina siiyay wuxuu rabbi tusaale inugu siiyay degmo iyo deegaan iyo bulsho haysatay deganayd barwaaqaysnayd ladnayd nabadgeliyo iyo dhereg ba haysatay waa labada qodob ee nolosha bini aadanka asaaska u ah way ladnaayeen nolol waasacay haysteen way dhereegsanaayeen ammaan iyo nabadgeliyana way ku noolaayeen cabsi aan lahayn nicmada rabbi siiyay bay garan waayeen oo ku kufriyeen oo rabbi ku khilaafeen oo macaasi ku kaceen oo ku kibreen maxaa ka dambeeyay allah wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala nicmadii deganaanshaha iyo xasiloonidana waxaa loogu bedelay cabsi iyo nabadgeliyadii oo luntay barwaaqadii iyo ladnaantiina waxaa loogu bedelay gaajo iyo carar iyo nolol xun allah tabaaraka wa tacaala waliba wuxuu ka dhigay sidii labiska dharka aad ku labisato kale sayid labiska oo kale u laazimo ruuxa ayaa labadaa iyagana dhar looga dhigay gaajo iyo cabsi maxaa keenay ma allah dulmiyay maya sunnada ilaahay kula dhaqmay waa sunnadii ummadaha lagula dhaqmi jiro bima kaanu yasnacuun waxay sameeyeen baa sabab u ahayd
waxay sameeyeen baa sabab u ahayd in badan bini aadamku inuu garowsado khaladkiisa uma badna laakiin wuxuu u badan yahay khaladkiisa inuu cid kala saaro natiijada ka dhalata meel kale inuu saaro marmarka qaarkood inuu ilaahay eedeeyo oo rabbi tabaaraka wa tacaala xikamkiisa iyo maamulkiisa uu duro marmarka qaarkood inuu cid kaleeto eedda saaro laakiin allah wuxuu ina barayaa waxa ku haysta adaa sabab u ah saxaabadii nabiga salawaatu rabbi wa salaamu calayhi dagaalkii uxud markii lagu jabay oo dhibaatadu dhacday oo 70 saxaabada akhyaartoodii ka mid ah dhulka la dhigay ayaa waxay yidhaahdeen anna hada maxay nagu gaadhay say ku dhacday kayfa hada الله تبارك وتعالى وحكوي قل هو من عند أنفسكم إذن كصوابوا يا واي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حقين شوفنا عنك قل هو من عند أنفسكم إذن كسبضي الله إذن ما الظلم منن إذن كان ليمد أبالك نوي واد استاهشان الله تبارك وتعالى إذن ما الظلم منن لكن إذن كقلي waxaad gasheen natiijo ka dhalatay waa reer bani israa'iil rabbi tabaaraka wa tacaala markuu badbaadiyey oo fircoon iyo gumaysigiisii iyo cadaadiskiisii iyo cadaabkiisii ilaahay ka badbaadiyey oo cadowgoodii iyagoo arkaya la halaagay ayagiina barwaaqadii iyo magaaladii iyo wixii fircoon iyo dawladdiisu haysay la dhaxal siiyey oo laga filahayay inay ilaahay ku shukriyaan allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku yidhi yaa bani israa'iil قد أنجيناكم من عدوكم عدوكين وإذن كبد بادني وحاكلون إذن سينا مركي تيها كوشرتين عنت إسكت ديار سنة وإذن سينا وإذن كوير زاغني من نجي يسلوه بورتدين عادين وانجي إذن كرب الله نعمل السيئ بها إلهي النعم كاسان إذن سيئ كشكرية ولا تضغوا حقوقنا نعمدها كفرننا عافماتك كفرننا عدو قال إذن كقاضي وحن إلهي إذن سيها كفرنا ولا تضغوا فيه حقوقنا هداد قوقدان محا دعيو النعم كقوقدان فيحل عليكم غضبي عرض إذا مركا إذن كل عيسو دوشين لكو دقيس هدي مجتمع يبلشد إلهي على ديسو كدكتنا محا دعيو ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى مربى هذي عرض إلهي كودكتو أو كوهبسته واض هوبتي مركا هوس إن أدو صعتم ويانا ككعميسد وكركعميسد إلى أدبا بعضه عذاب بكودي بيا عقوبة يكودي بيساواد هوبتي الله تبارك وتعالى معناها سير بني إسرائيل شيء والسنة دي سو إن برا وأنا مد ما أنت إن هي ستواه وحكم إذا سننك إلهي تبارك وتعالى أمد مركي كبيرتو طريقة كاللاحته ومعاصدي حمانته لحظة كبضته قاببك إلهي عذاب وحكم إذا مضحهم بالغصة لذا مضحهم بالغصة لذا مضحنا لخربا انت وضحهم باكرل صومريا انت اللي دتا تلد اللوغو ليبا markaasay maskaxdooda khafiifsadaan oo ay meel xuluhu hogaamiyaan oo cadaabka ilaahay sii siyaada oo sii burburaan oo balaayo ilaahay ku sallida tabaaraka wa tacaala waa nooc cadaabka kamid adiga kolba dhinac u dhig kol taxliili kolba meel la aad laakiin kownkan ilaahay baa ka taliya allihii ka talinayay waxan ka maamulayayna wuxuu inoo sheegay waxa la idinku salliday madaxda noocan ah idinka way wakadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun hadad aragto mujtamac madaxdu ka halowday mujtamaca halaysana meel xuna ka raadin hana eedin iyaga kaligood mushkiladu waa adiga qabiilaysta adiga jiran adaa dhiiga daadinaya adaa isaga doortay adaa meesha keenay adaa jiran oo aafa ku haysa hadii marka madaxa laga garaa maxad ku diidi yaad eedi la talumanna illa nafsak
xaqiiqada u soo deg meel kale ha aadin adiga waay yaa dhiigga daadiyey yaa qabiil isu laayay yaa ilaa maanta dhiigga daadinaya yaa dhulka ilaahay fasaadiyey yaa xumaanta garab taagan yaa diinta ilaahay iyo dhaqankii wanaagsanaa ka leexday yaa waay waa adiga sidaas daraaddeed wakadalika nuwalli bacda aalimiina bacdan daalim baa tahay in daalim lagugu sallidaayay marka xaq weeye gardarro ma aha waad istaahishaa ilaahayna kuma dulminin tabaaraka wa tacaala allah macnahaasuu ina barayaa tabaaraka wa tacaala fisiqa iyo fusaadka iyo diin la'aantu markay badato ilaahay tabaaraka wa tacaala cuquubaadkiisuna waa badanaya kolbana dhinac baa la iska ciqaabaya nabigeenna muxameda salawaatu rabbi wasalaamu calayh habeen maalmin ka mida ayuu wuxuu la joogay xaaskiisa zaynab binti jacsh nabigu sal alla alay wasalam isagoo argagaxsan buu u soo galay oo uu leeyahay weylun lilcarabi min sharin qad iqtarab carab halaag baa ku dhacay shar soo foodle oo muxuu yahay yaajuuj iyo maajuuj sadigii ku xidhnaa yaa intaasoo kale laga furay buu nebigu sal alla alay wasalam oo yaajuuj iyo maajuuj hadday soo fakadaan ma adduun baa jiraya wax walba way liqayaan carab halaag baa ku bilowday markaasaa waxay tidhi zaynab radia allahu tacaala canha yaa rasuula allah annuhlaku wa fiina asaalixuun oo rasuulkii leeyahay miyaana la halaagi annagoo dad wanaagsani nugu jiraan zaahid maxaa culimaa maxaa ahlulkhayra maxaa cibaada ahlulkhayr baana dhex jooga miyaana la halaagi nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam nacam idaa kaura fiikum alkhabat haa waa laydin halaagi markii xumaantu dhexdiinna ku badato dilku markuu bato fisqigu markuu bato akhlaaq xumadu markay badato markii diinta ilaahay iyo kitaabka ilaahay inta maxkamadii iyo dawladdii laga saaray oo bannaanka la dhigay xukumkii iyo qawaaniintii farastiiska iyo ingiriiska inta la keensanay maxkamadaha la dhigtay kitaabka ilaahay lagu dhaqmana ay dembi noqotay war kitaabka ilaahay ku dhaqma war xeer jajabka tuura war waxaan odayaashu dejiyeen meesha ka saara war ilaahay tabaaraka wa tacaala sharcigiisa iyo diintiisa laydinma dhaameen dhaqan iyo xukun ka dhigta maya waa laga soo tegey waa horaya taa iyada maxaa beddelay waxaa beddelay qawaaniintii faransiiska maxkamadaha yaallaan kii ilaahayna meesha bannaanka loo saaray gadaal ha loo dhigo adeer ninkii aadayo masaajidka la aad meeshaa ku akhriso laakiin maxkamaddii iyo dawladda rag baa iska leh yaa maxkamaddii iyo dawladda rag baa dejista laakiin kitaabka inaad akhrinayso adeer masaajidka ku akhriso halkaa markay gaadhay oo halkaa aynu marnay shacabkiina halkaa maray maxaynu sugaynaa marka waa inaan garowsanno innagana khaladka leenahay qul huwa min cindi anfusikum idinkaa galay innagaa gallay innagaa khaladka iska leh allah tabaaraka wa tacaala macnahaasuu ina baraya macnahaasi haddaadan garowsanin waad wareersanaanoo xalku meeluusan jirin baad ka raadin mar mid ilaahay madaxa kaa saaray baad eedayn mar gaal baad eedayn oo dhihi isagaa ii dhiibay sax adigaa istaahila allah tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid ah qaababka uu kuu ciqaabayo marka aad sunankiisa inay ka mid tahay markay ummaddu ilaahay caasido oy xadhiggiisa furto oy macaasidu ku badato oo dembiyadu ku bataan waxaa ka mid ah allah tabaaraka wa tacaala inuu isku diro iyada dhexdeeda qabiil koox gurub afkaar kadibna iyada la isku sallido yaa ay birta iska waraabiso dhiigga daadiso macnaana isu layso isbaabi'iso iyadana waa cuquubo rabbi waaye waana cuquubo ka dhalatay dembiyada la gelayo اسمع قول الله تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الله تبارك وتعالى ومدك أودا إنه عذاب كور إذن كيانو أما اللغة هوستودا إذن كغسو سارو أما إنتو إذن كردقو كوحو إسكو كينديرو مدك أودا واحد وفي رسالة ميشا لإسكو لماني كور إنه عذاب كسو دقو هوست دولك هوستيسا إنه كيماتو دولك الإسلقويو وحال لغلا مدقاي in inta qabiilooyin iyo kooxo laydiin qaybiyo la isku keendiro cadaab ilaahay weeye tabaaraka wa tacaala muxuu ku yimid allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala waxay sameeyeen baa keenay sababtu waa innaga xal muxuu yahay xal ma jiraa xalku xaggee ku jiraa ma kan nasiib kan nasaar buu ku jiraa
ما أنت مدينة أدوه الله يصوت صار توتر هذا مد كان وحجامين دونه خير يبراق الهلي دونا مدعوين في عم بايمد شعبك الله قرعه ورصا حالكم يمادو حالكم وحكوي ماذا مشكلة الجذور تدي السلك تدي حديد كذا هلا حليو بلشدني وإلى إلهي وصل نقطه دولة هذه حكام تدي وإلى إلهي وصل نقدان قبيلة دي قشن كوائل بابيو إلهي شرعي كيس وإن الله وصل نقدان دي كان ضادنا ينو يستاجو فرقداً قشن كان يوحى الرجوبا باي إن لقى فيو بادو والله فيو بادو إلهي الله صار نقدر تبارك وتعالى الله مركا وحلنا يا عذابك والله قاضي يا نعمة بدليسا نولشن سيئة كان يسمى حاكينا يسعر بركة محاكينا وحكينا وحكلا معها الله تبارك وتعالى سوى البا وحلين وعدي لكن هدين فهمينه هدين قرنينه مشكلة إلى هاي ستة إنك السببها حل كذا محوية الله تبارك وتعالى وكذبردق ربي تبارك وتعالى فيحلل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى حلكم محوية ربي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صون نقضى الله الرمية عبادة أقونيالا دينتيسا كل رقمة طريقة كسقناده وكتوسا سيدا مركا لهلو وحول بإلهي تبارك وتعالى وفضضين يا قلوبتي نوسوس وحلين يا من نمو إذن سينا يا قرن نمو إذن سينا يا دولة نمو إذن سينا يا نبت قليو إذن سينا يا هرمر بعد هليسان واد نولانيسان عدو إنه إلهي إذن كقبنا يا أمت شرتان نقونيسان لكن حقا حلقو كتيرا إلهي وصولات المالك لهداد كوريجي ستان صوماها ما ننبس سيداد أردك تنبو إلهينا أردك يا الله تبارك وتعالى نبي مين إنك نبان نباتذا أي نكبحنا حقيقة أي نتابنا إلهي أنصر نقولنا تبارك وتعالى شرعي سنة أنصر الله بنا وحي خلاف سنة بناك الله يسكدقو الله تبارك وتعالى توبده هنا وافجيه دينتنا الله ينقدله إلهينا أحواشنا إصلاحيه حكامة الله إصلاحيه وشعبك بلشدة الله إصلاحيه قبيلة الله ينقى صاره وإلهي تبارك وتعالى آفات كان إلى ندق إلهي تبارك وتعالى ينقى صاره وربي تبارك وتعالى نحريستي سهين وسودتشيو ودلقاتك سهين وقول رقمه وربي تبارك وتعالى عذابك يا عرض الله ينكر قاضه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضى اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك